wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle xildhibaan Maxamed Cumar Ciimoy iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Bashiir Qaasim Dakhare qaar ka mid ah iskaashatada beeraleyda magaalada Jowhar maamulka degmada iyo kan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa kormeer waxa ay ku tageen goobo laga hirgeliyay mashaariic horumarineed oo lagu kordhinayo wax soo saarka beeraha magaalada Jowhar waxaana iskaashatada beeraleyda magaalada Jowhar qaybna ka ah kormeerka wasiirka ay mahadcelin u jeediyeen wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle beeraha waad aragtay inay gubteen qaarkood waxay u baahan yihiin ceelal laga qodo beeraha waxay rabaan matooro waxay rabaan cagaf waxay rabaan adeegii guud oo beeraha loogu shaqeynayo waxaan halkan ka cadeynayaa oo ahay gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda Horyaal Weydow marka waxa loo baahan yahay oo waa dhameystiran yihiin macnaha beerihii waa soo baxeen waa tacab ay joogaan duqa magaalada Jowhar Mudane Saalax Muude ayaa wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle ka codsaday inay caawiso beeraleyda magaalada si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda beeraha marna aad ayaad ugu farxaysaa oo waxaad arkaysaa quruxda beeraha ay qabaan marna waxaad arkaysaa caqabadaha iyo dhibaatada jirta ay dadka beeraleyda ay rabaan iyo waxyaabaha ay codsanayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Dakhare ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle ay garab istaagsan tahay beeraleyda magaalada Jowhar mudane wasiir maanta indhaha ku soo aragtay xafiisyadii ay furteen iskaashatooyinka shanta ahaa ee midnimo waxaan soo kormeernay indhaha ku soo aragtay beeraleydii kuwa hadda aan joogno iyo kuwii aan soo marnayba indhaha waxaa ku soo aragtay in kuwana halka kanaal ee kaliya ee biyaha hadda ay ka socdaan waa hal kanaal beeraleyda guud ahaan Hirshabelle waa ogtahay webigu waa guray wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle xildhibaan Maxamed Cumar Ciimoy ayaa waxa uu sheegay in beeraleyda magaalada Jowhar ay haysato caqabad dhanka webiga ah isla markaana wasaaradda beeraha Hirshabelle ay u diyaarisay qorshayaal wax loogu qabanayo tacabkii lagu yaqiinay Hirshabelle khaasatan gobolka Shabeellaha Dhexe ee bariiskii lagu amaani jiray inuu maanta mirihiisa sidaas aad u arkaysaan maanta uu yahay mid diyaarsan meelaha aad soo aragteen waad arkayseen beeraha galleyda bariiska bocorka magaciisa wax waliba ay ka baxayeen ee nolosha taale ee wanaagsan waa meesha hadda lagu soo hadal qaadanaya ila dhahay adduunka ka joogo Jowhar ama Jidda waa arigaasi arigii cidi bixisay waa qof fiiriyay maxaa yeelay markaad aragto nolosha maanta meesha taagan Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar